madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda Islaamka ku hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Adha ee sanadka Hijriyada Islaamka ee 1442 oo maalinta bariya ku beegan waxaan u rajaynayaa in sanadkan sanadkiisa ay ku gaaraan bashbash barwaaqo nabadgelyo iyo caano wuxuuna madaxweynuhu Ilaahay ka rajaynayaa in ciideeda inagu gaarsiiyo caafimaad qab cibaado suuban nabadgelyo iyo horumar sidoo kale madaxweynuhu waxa uu inta bugtay u jiifta xanuunada ee aan nala ciideen alla uga bariyay inuu ka dulqaado xanuunka caafimaad taamana siiyo inta dhimatay alla u naxariisto una dambi dhaafo ugu dambeyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhambaal hambalyo u diray guud ahaanba shacabka Islaamka ee ku dhaqan dunida dacaladeeda Ciidul Adha awgeed shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu leeyahay ciid mubaarak ciid al-caafiya kullu caam wa antum bil khayr Shaafi Cabdi Maxamed Bulsha TV Hargeysa qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber maxaa ku dhibay isticmaal samtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo macmiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo MiFi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan